وليga inta ilaahay wax weydiisatay ilaahay inta duca ka barsi ducada like this intuu kugu sii naxtin ma kugu noqotay oo ma isdhahday ilaahay inuu ku hortaagan yahay kala argagax ma kugu noqotay like it just became too powerful. Let me tell you a story. gaarigayga waxaan intuu saa sugayaa waa ijeedin gaariga wuxuu isoo saaray calaamada gaaskayga inuu loo yahay and I want to tell you story time. sheekadan waxaa laga yaabaa qaarkiin in aadan rumaysanin laakiin it's a true story. Long time ago I was broke. college ku jiray faqiirad ba ahaa lacag badan ma haysanin imtixaan badan aan lahaa maalinkaas inta habeen jimce ahayd I remember imtixaan badan aan lahaa imtixaankii i wareeriyay imtixaanka markuu ii soo dhamaaday dormkay ku soo noqday. It was getting late. jaamacad waxaa ka aadi jiray meel la dhaho St. Cloud State University cid taqaano so St. Cloud State jaamacad ka aadi jiray waxaana deganaa gurigayga oo midnight ah aadi 2 saac camal isku jiraan. Anyway imtixaankii wixii ay soo dhamaadeen markii wixii ay soo dhamaadeen waxa ka soo baxay St. Cloud waxa u soo socday guriga hooyaday bas u soo socday ilaa amarkiis maskaxdayda I had a lot in my mind. I was going through a lot of time. It was a really tough time ma fahanti so I wasn't really thinking clearly ma fahanti adi 1 AM markii la gaaray ara waxay ugu soo dhacday oh my god I'm still in St. Cloud I need to go home I don't want to spend the weekend here guriga hooyaday aadaya soo baxay gaari xun oo joqof ahaa haystay gaari xun oo joqofkayga soo qaatay highwayga 94 ka soo kare saa u soo socday highwayga mar allaala markaa Minneapolis soo gaaray oo waxa ii soo baxday calaamada gaaska did ii soo baxday waxa arkay gaas yar inuu igu jiro oo I need to pull over and get gas only to realize by this time adiga waa 2 AM camal waaye adiga saddexdii ku dhowdahay gas furan ma jirto meel furan ma jirto Minneapolis axmaraya naxtin aniga I was like oh my god and then I realized telefoonkayga 2% to maroya boorso ma wati lacag ma wati saa u soo socdo waxa soo gaaray 94 ka qaybta oo St. Paul Metro State agteeda saas Metro State marka u maray my car started shaking it was about to die zero calaamada zero iso baxda it was zero gasna ma leh lacagna ma heenin gas stationna ma joogin telefoonkayga fiiriyay 1% naxtin anigi I started calling my mom ma iga qaban walaashiya waxay dadku everybody aqaanay waa qofna ma iga qaban telefoonka my phone was at 0% u dhimar raba ma fahantay bas wax yar markaa socday telefoonkayga uu dhintay xaafadda Midnight-na weli ma gaan waxa ii harta like 7 maybe 10 miles hadda ugu badato ma fahantay markuu telefoonka iga dhintay arkay gaariga zero ay ugu qoran tahay waxa dhahay naxtin waxa sameeyaa garan waa markii hordada ku fikiraa waa inta waxa soo keen sawirta anoo la qasho oo bridge kale iga tuura ma fahantay naxtin maanta waxa ku fikiraa Allah hooyada ama ku aragtaa subax markay soo kacda meedkaaga wabiga laga heli doontaa ama lagu qaqashay waxa isku keen sawiraay ala kul xal emergency lane ka galay waxa sameeyay waa iska duceystay geeska markaa ka baxay traffic ilaan wadada lane highwayga waa ka bax dhinac ugu dambeeya gala si gaariga haduu igu damo emergency lane-ka iska gala ma fahantay calaamada emergency-ga daartay ilaaha iska bari waxa ilaahay rabbi raxmaano marbi inay meedkayga meeshaan laga helo habeen bar waaye Friday night waaye wax sameey ma aqaan ilaahay rabbi raxmaano ibadbaadi kaas ilaahay ibadbaadi dhahay gaariga anoo wado dhahay oo gaaska zero idhaysa ma aragtay way joogsatay dhidhiiqti and I was like I know gaariga inuu joqof yahay but I know it's not that crazy so I started looking wallahi oo billahi oo tala indhahaygo 5 ah ano calaamada gaaska fiirna anigu indhahaygo 5 ah zero inta ka kacda did waxay istaagtay calaamada fuulka it went from calaamada below the E line to did calaamada fuulka ee istaagtay ani naxtin markaas waxaas dhahay okay waxa umno ilaahay hortaagay oo kala martay I got so scared I got so nervous boom soo dhahay gaariga emergency lane-ka ku jiro wax ka soo bax lane-ka caadiga soo galay gaariga waa wada waxa isleeyahay uu dhiman raba hadan niid waxa iska leeyahay no ilaahay wouldn't be playing with you like this gaariga waa wadaale ma iga damooy calaamada dhidhiiqda ma ii soo buxooso zero gas ka ma ii soo buxooso wadle waa socda saa u socday gurigayga tagay markaa parking ka soo istaagay oohin iska qabsaday because there is no way below the E00 ga aha inuu gurigayga igeenaay and I saw with my own eyes calaamadu ida ka kacday oo tagtay all the way to the full sign hooyada soo kicay waxa ku dhahay kac mucjisa dhacda caaw soo kac na maxaa qaldan tan way waalatay jaamacada ku waalatay iskuulka in laga reebo waay hooyada mucjisa wax kala ku furan soo kac ku dhahay gaariga kala soo fiiri way fiirsa gaariga daar way daartay what do you see waxa ma gaas ku soo shubtay qiila qeyr ha ku see no gas ma gaarigan gas I told her the story waxay ku dhahday waa iska seexo my mom looked at me like xogaa yarista way qafiifta amal iska seexo barigaas I was in a really a lot there was a lot going on anyways
I woke my dad up in the morning and I told him what happened. And he said, Ikran, maybe gaariga joqof maadamu yahay waxa ka halaysan gaaska wiil Soomaali oo university ku yaalo oo garaash lahaa. I don't know haday qofkii yaqaano. That was my guy. He used to fix all of our cars. Anaga dhan joqof yaala wadana ma fahamte. Wiilkiyaasoo waa soo baxan ani aabahay wiilkii u tagnay. Aabahay wiilku waxna mu u sheegay wuxuu ku dhahay adeer gaaska marmar asagoo zero ah bay calaamada full tagtaaye fiiri waxa ka qaldan. Wiilku soo baxay uu fiiriyay. Nothing's wrong. Gas is full. Gas is full. Calaamada just like the way it says. Markaas wiilkan to aabo madaxu ku dhahay adeer gaariga gas u kaysa waa full. Calaamadan full ay dhaho soo wax qaldan ma jiro, everything's fine. Anigi, I was like, oh my God. Ilahi heard me. Even though yaqiin ay ugu jirto Ilahi heard me, it was still like wow, how I still to this day have no words for that situation. على كل حال, if you have a story ساسو كلا أو إلا أنت دعاء وديسة الدعاء إسلام مركين ده لقى عقد رباح ما عرفته. سوقر ولا I'm curious to know.